كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم الصلاة والسلام اللتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إلهي waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala khayr inuu nagu kulmiyo. inta aan nool lahay wada joog iyo kala tagbana diinteenna iyo dunyadeenna xifdiyo oo badbaadiyo, oo fitanka dunyada ilaahay naga badbaadiyo. mowduuca ama arrinta ku saabsan qaraabada iyo xigtada waxa ay mudan yihiin iyo waxa aan ku habboonayn, waxaan filayaa wax cusubna ma aha, ee waxaad og tihiin ma idiin sheegaayo isxasuusin weeye. min baabi qowlihi tacaala wadakir fa ina adikraa tanfacu lmu'miniin. cilmiguna qofka muslimka ee bii'a ama mujtamac iyo bulsho muslima ku soo dhex weynaaday, wax badanna meelo khayr iyo dikri iyo cilmi iyo dacwo iyo muxaadaraad lagu hayo tegay. axkaamta sharcigu sida caadiga ah inteeda badan marar badan bay dhegihiisa soo martaa ama indhihiisa akhris ahaan u soo hormartaa. maadaama bulshada soomaalidu ay mujtamacaadka muslimka ka mid tahay, markii la yidhaahdo dadweynaha guud ee muslimkaana waxay ka mid yihiin dadka waxa innagu aynu nelaanay cilmi dhagoodka shucuubta muslimiinta inta anigu aan arkay ugu badan bay ka mid yihiin. maadaama mujtamaca soomaaliyeed uu yahay mujtamacan wax qorin si asalka ahayd ee erey iyo hadal isugu gudbiya. masalada qaraabadu marka iyo xigtadu diintii inta badan lagu soo dhaqmayey iyo dhaqankii wanaagsanaa ee bulshadaas mujtamaceenna soomaaliyeed uu lahaa ee xidhiidhinta iyo ka warqabka iyo soo dhoweynta xigtada iyo qaraabada ahaa, xataa mahmahahooda iyo halkudhigyadooda ayay qaybo badan oo ka mid ah ay gashay. markay ka hadlayaan xiriirinta iyo dadku say isu mudan yihiin, mujtamaca qabali oo baadiyadagu ahaa, deegaanka iyo wada noolaanshahana qaab reerreeraa loo noolaa. noloshii qaabkaa loo noolaa qofku wuxuu ku qasbanaa qaraabadiisi iyo tolkii inuu ka mid ahaado, iyadoo sharcigu waajibiyey bay haddana duruufta soomaalidu ku qasbaysay. markaase waxay dhihi jireen tolkaaga iyo dharkaaga midna lagama dhex baxo, dee qofkuna dharkuu qaba iskama dhigo meel kagama dhaqaaqo, oo qaawanaantu ceeb weeye. waxay barbar dhigi jireen qofka tolkiisii iyo qaraabadii ka dhex baxa. laga yaabaa marar si qalad in loo adeegsan jiray. waxaa alkudhigyadeenna kaleoo ka mid noqday riximgoys, waa reero naareed oo ah wuxuun axaadiid iyo aayaadka culimmadu sheegaysa in badan intii laga maqlay markii dambe halqabsi iyo halkudhig noqotay, ay dad badanoon xadiidi aayad aqoonin markii qaraabo la xumeeye laga soo hadlayo iyada ay soo qaataan oo horaa loo yidhi riximgoys waa reero naareed ay yidhaahdaan. arrimaha dhaqankooda iyo sugaantooda ka mid iyo maamaahahoodu waxay tilmaamayaan mujtamacani muslim weeye. wax badan bay maqleen qaraabada ha la wanaajiyo, xigtadan ayaan la xumayn. si loogu celcelinayo kolba qaab loogu sheegayey bay dhaqankeennii ka mid noqotay. marka iyadii unba ama masaa'il qaarkeed qarsoomay ama mid la yar halmaamay baynu isxasuusinaynaa, ama qof jidkii saxda ahaabaa hayay baynu dhiiri gelinaynaa.
ama qof waxoogay ay la weecatay oo la yar durugtay aynu baraarujinaynaa oon leenahay dariiq xun baad haysaa ee dib uga soo laabo. waa xasuustii awaanadu labadaba way tartaa. sidaa darteed qof ku jira oo dhiirigelin iyo tirtirsiin u baahan si uu u sii wado u sii badiyo oo ay u noqoto faraska usha waxaa loogu dhuftaa ha dheereeyo, iyo qof waxoogay ay ka bariiqatay ama ishalmaamay oo la baraarujiyo oo la xasuusiyo oo la yidhaahdaa sidan aad ku jirta ma saxna, isa sax. labadaas arrimoodba waxay tilmaamayaan waa nuxurka wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin. qodobada hadalka kelimadeyda intaa kadib horudhaca aan mari doono insha allahu tacaala waxaa ka mid a macnaha qaraabada xiriirintooda maxaa looga jeedaa, xukunka xiriirinta qaraabadu maxay tahay, qur-aanka iyo sunnadu maxay ka tilmaameen, qaabkeebaa qaraabada loo xidhiidhinayaa, maxaa keeni kara qofku qaraabadii xaqa iyo xusuustaa iyo xiriirka mudnayd in xidhiidhintiisu ay xumaato, asbaabta keeni karta maxaa ka mid a, maxaase qofka ugu kaalmayn kara inuu xigtada iyo qaraabada xidhiiriyo oo arrintaa uu daryeelo oo tixgelin sameeyo. inahaasaan si kooban uga hadlayaa. waa ilaa mowduuca qaraabo xidhiirintu haddii qur-aanka iyo sunnada aan nidhaana inta aan gaadhi karna maanta aan ka hadalno iyadaa saacad iyo bar iyo 2 saacadood keliya aayadihii axaadiistaan ugu qaadanaya, laakiin waxaan la wada gaari karin lagama wada tago. saa darteed mid walba wax yaroo kooban maadaama xasuusin ay tahay iyo isbaraarujin, mid walba wax yaroo kooban baan ka taaban doonaa, ka tilmaami doonaa haddii alla yidhaahdo. xiriirinta qaraabada ama waxa ay mudan yihiin 2 erey bay culimmadu ku soo ururiyaan. waxay yidhaahdaan kafu ladaa wa badlu nada. asaas waxaa waa 2daa qodob: in dhibkaaga xigtada iyo qaraabadu ay ka badbaadaan, in waxtarkaaga ay arkaan. waxaad tarayso iyo saad u taraysaay dib baynu wax uga tilmaami doonaa, laakiin waxtarkaasi wuxuu kulminayaa hadday dhaqaalo tahay, hadday talo tahay, hadday awood iyo xoog tahay, hadday cilmi iyo aqoon tahay, hadday duca iyo tahay, ka warqab. intaasoo dhan baa lagu soo ururiyey badlu nada, in waxtar iyo manfaco iyo nafci lagaa helo. qaraabada xiriirintoodu qodobka koowaad saa weeye. qodobka tiirkeeda labaadna dee waa wax guud muslimiintuba ay kaa mudnaayeen in dhibkaaga laga badbaado. nabiguna si guud ugu celceliyey almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih. haddii muslimkii guudba saa la yidhi, kan qaraabadu waa ka sii mudan yahay. qaraabaduna waa inta ku xigta saan tilmaami doonnee aan adiga ahayn. hooyadii aabbuhu qaraabaday ku jiraan, ilmaha dhashayna qaraabadu ku jiraa. iyagaa xuquuqda xiriirinta ee badlu nada ay leeyihiin. waxtarku axkaam iyo darajaad fara badan buu yeelanayaa oo kala duwan. darajaad fara badan buu yeelanayaa oo kala duwan, laakiin guud ahaan marka la isku soo celceliyo dadka inaad waxtarta wey, oo xigtadii iyo qaraabadii aad waxtarto ood xidhiidhiso. dhibkaaga af iyo adinbana naftooda iyo maalkooda, diintooda iyo sharaftooda iyo cirdigoodana ay kaa badbaadaan. taasi waa macnaha looga jeedo qaraabada xiriirinteeda. halkaa waxaa ka muuqanaya haddii 2daa mid aad samayn weydo qaraabo maadan xiriirin. haddiiba dhibkaagu gaaro qaraabo qof xiriiriya ma tihid. haddii waxtarkaagu gaari waayana qof qaraabo xiriiriya ma tihid. haddii aad 2daba isugu dartana dee waa ka sii daran tahay. saas darteed qaraabada xiriirinteeda waxaad ka garatay
in labadaasi ay qasab tahay dhibkaagoo laga badbaado iyo dheeftaada oo la helo iyo waxtarkaaga. haddii waxtarkaaga la waayana qaraabo maadan xiriirin, haddii dhibkaaga laga badbaadi waayana qaraabo iyo xigtada maadan xidhiirin. taasi waa qadiyadda koowaad. ta labaad, xukumka xidhiirintuna inuu waajib yahay, goynta qaraabaduna xaraam tahay. culimmada muslimiinta intaan ogahay khilaaf kama jiro. waajibaadka acyaanta ee fardu caynka ay ka mid tahay xidhiirinta qaraabada. waxyaabaha muxaramaadka kabaa'irka waaweyn bayna ka mid tahay qaraabada goynteedoo la gooyo. culimmada kabaa'irka qoray ama dunuubta waaweyn wax ka qoray inta aan garanayo qaraabada goynteeda way ku soo wada dareen. qaraabogoysku way ku soo wada dareen. saas darteed qaraabada markaad xiriirinaysana ma aha abaal, mana aha wax adigu aad iska samaynayso oon lagugu lahayn. waa xaq faradoo waajiboo qaraabadii iyo xigtadu ay kugu leeyihiin. dhinaca kalena waa cibaado aad rabbi ugu dhowaanayso ood ajir kaga doonayso. saar darteed cibaadaadka waajibaadka ah markaad samaynayso ma aha waxaa la eegaya qaraabadu maxay adiga kugu sameeyeen, ee adigu ilaahay baa kugu addoonsaday oo inugu addoonsaday dhammaanteen inaan qaraabada xiriirinno sida salaadda iyo soonka iyo sakada laynoogu addoonsaday. salaaddu dee dadkii jamaacada hadday waajib kugu ahayd, qolyihii masaajidda ay xumeeyey oo masaajidba ku tukan maayo, garawsho ma laha. sida taniba anigu xidhiirin maayo qaraabadu iyaga ay gooyey ama ay xidhiidhin waayey, garawsho uma aha. waajib ilaahay kugu waajibiyey inaad ku caabuddo, inaad uga tagto, garawsho kuma laha. saa darteed qof walow waa inaan xasuusnaannaa markaynu xigto iyo qaraabo xidhiidhinayno keliya ma aha masaladu masalatu ixsaan iyo abaal maaha. masaladu masalo waajib iyo cibaado aad gudanayso ilaahay kaa rabo weeye. haddaad samayn weydana aakhara lagugula xisaabtami. qaraabada markaaad goynaysana waxaad ku xisaabtami dembi weyn inaad gashay oo nusuusta qur-aanku ku tilmaamaysa saynu arki doono iyo sunnadu inay dunuubta naarta lagu gala tahay. saas darteed labadu midna intaan ogahay si guud ahaaneed khilaaf kama jiro in xidhiirinta qaraabaduna waajib tahay, qof kasta qaraabadiisa inuu xidhiiriyo. goynteeduna ay dembi tahay kabaa'irta ka mida. qodobka saddexaad, xukunkaa waxay culimmadu isugu raacayaan waajibnimada xidhiirinta iyo xaraam dembi weyna inay tahay qaraabo xumayntu. waxaa sababay qur-aankuna aad buu u fara badan yahay, sunnada nabiguna aad bay u fara badan tahay. kitaabka iyo sunnadu laba qaab bay labaduba inoo faraan. mar waxaa layna faraa xigtada inaan xidhiirinno, aynu waxtarno, aynu taakulayno, aynu dhibka ka dayno baa mar layna faraa. marna waxaa la inooga digaa inaynu qaraabada goyno, oon xigtada iyo qaraabada xumayno, oon xarigooda jarno, oo xaqay inugu lahaayeen aan ka soo bixi weynana mar baa la yska reebaa. alfaadda nusuusta kitaabka iyo sunnadu marna lafdiga raxim bay isticmaalaan, marna ereyga lafdiga qaraabay isticmaalaan. mar si guud bay u duuduubaan oo qaraabo iyo raxim bay yidhaahdaan, marna way magacaabaan qaybo ka mida laynoo tiriyaa. qur-aanka waxaa ka mida ilaahi subxaana wa tacaala suurat alanfaal aakhirkeeda markuu ka hadlayo wuxuu yidhi waaladiina aamanuu min bacdu wahaajaruu wajaahaduu macakum faulaa'ika minkum wa ulularxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illaah. kitaabka ilaahay haddii la eego dadka raximkee wada dhashay baa ismudan oo isku habboon. waxaa jiray islaamka bilowgiisii hore dadku isu dhaarasho iyo issheegad
ama heshiis iyo saaxiibtinimo dheer bay isku dhaxli jireen oo qofku markuu dhinta ka kala ku dhaxli jiray aayaddani waxay ka mid tahay aayaadka xukumka lagu nasakhay si kastoo shirkadu noqotaan si kastoo deris u noqotaan si kastoo saaxiibo u noqotaan si kastoo dhaqan iyo qaaraan idinka dhaxeeyo qofka dhinta isdhaxal iyo xaqiisii yaa mudan marka la yidhaahdo ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin iyagaa isku habboon saas darteed qofka markaad dhimato xoolahaaga dhaxalkooda iska leh dadka kaleoo dhanna ka mudan macnaheedu waxay tahay xoolahaagu xaq buu ku leeyahay waa qofkii mudnaa markaad noolaydna inaad xoolahaaga iyo hantidaada iyo waxaad awooddo wax ka siisood wax kaga xusta mudnaa waay marka ilahi subxana wa tacaala aayaddii suuratu nisa bilowgeeda ahayd markuu yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha wabaha minhumaa rijaala kaiira wanisaa'an waاtaquu allaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaam ilaahaygii aad wax isku weydiisanayseen ka baqow xuquuqdiisa ilaaliya waalarxaama wattaquu larxaama qaraabadana xuquuqdeedii iyo waajibaadkeeda ka baqo iska ilaaliya inaad dayacdaan ama aad ku xadgudubtaan raximka ka baqo ilaaliya waayo waajibkuu kugu laha haddaad gudan weydana waa dembi weyn haddaad isagii goysood xiriirintiisii ka soo bixi weydana waa dembi weyn oo lagu naar mudanayo haddaba xaqii ilaahay baa si guud xaqii qaraabadana lagu lamaaneeyey oo ilaahayna ka cabsadaa la yidhahdo wax isku weydiisataan raximkana ka cabsada baabkaas waa baab khatara haddaad waajibaadkiisa ka bixi weydo oo dayacdo baab adag weeye iska ilaaliya baabka xigtada iyo qaraabadu marna ilaahi subxaana wa tacaala si guud buu u tilmaamay wanaagga ay leedahay waxaa ka mid ah aayaadka kale faaati da alqurbaa xaqahu waalmiskiina wabna asabiil dalika khayrun liladiina yuriiduuna wajha allah qaraabada iyo masaakiinta iyo musaafiriinta xaqooda siiya laguma dhihin ku galladayso fadli iyo ixsaan samee laguma dhihin miskiinku xaq buu kugu leeyahay musaafirku xaq buu kugu leeyahay qaraabadii iyo xigtaduna xaq bay kugu leedahay waxa aad siinaysa haddaba waa xaq ay leeyihiin wey faaati da alqurbaa xaqahu xaqiisa sii inaad saa yeesho dalika khayrun liladiina yuriiduuna wajha allah wejiga ilaahay aakhara dadka doonayay ridihiisa taa inay yeelaan baa u khayr badan aayaddaa waxaa la mid oo ku dhow tan qofkii sameeya inay u khayr badan tahay baa la sheegay mid ku dhowo waxaa jirtaa waaati da alqurbaa xaqahu waalmiskiina wabna asabiili walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaaiini xoolaha ku ciyaarin laakiin qaraabada iyo masaakiinta iyo musaafiriinta xaqooda sii halkaa waxaa laga tilmaamay wixii aad masaakiin siiso iyo wixii aad musaafiriin mudan siiso iyo wixii aad xigtiya qaraabo siiso xoolo la daadiyey ee tabdiir lagu ciyaaray ma aha walaa tubadir tabdiiran waxa loo keenay waxaa ka mid a in lagu yidhaahdo kuwaa waxsii xoolahana ha ysaga ciyaarin kuwan waxaad siisay iyo abwaabulkhayr ku bixiso xoolaha ku ciyaar maaha daartii aakhiraad geysanaysaa waajib rabbi baad gudanaysaa xaq lagugu lahaa baad iska ridaysaa haddii qaraabada la gooyo laba meeloodba qur-aanku wuxuu ku tilmaamay qaraabogoyntu dhaqan muslim ma aha wax muslim laga filana ma aha waa dhaqan gaal iyo inaan ilaahay iyo aakhara rumaysnayn dhaqankood wey fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lard wa tuqaicuu arxaamakum ma laga yaabaa ma mudan tahay haddaad diintan ka leexataan oo rumaynta ka jeedsataan inaad laba samaysaan inaad adduunkana fasaadisaan ood xumo ka shaqaysaan raximka iyo xigtadana goysaan soo ma dhici karto haddaba dhulkoo la fasaadiyo iyo raximkoo la gooyaayey waxay ka dhashaan oy midho u yihiin jidka ilaahay oo laga jeedsaday xuquuqdii iyo waajibaadkii ilaahay faray oo laga leexday dhaqan muslin ma aha dhaqan gaal wey
marka ilaahay wuxuu leeyahay isagoo gaalo tilmaamaya walladina yanquduuna cahda allahi min bacdi miihaaqih wayaqطacuuna maa amara allahu bihi an yuusal wayufsiduuna fi lard gaaladu waa kuwa axdiga iyo ballamaha allah ay la galeen bay jebiyaan oo ilaahay markuu yidhi waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala shahidnaa calaa anfusina ay yidhaahdeen bay ka tallaabsadeen oo shirki bay galeen kadib maxay sameeyeen oo kaloy sameeyeen wayaqطacuuna maa amara allaahu bihi an yuusal wixii in la xidhiidhiyo ilaahay uu amroo qaraabadii iyo xigtadiiyaana waa goynayaan haddaba xigto iyo qaraabo la gooyo dhulkana way fasaadinayaan waa labadii fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaطicuu arxaamakum baa waxaa la mida wayaqطacuuna maa amara allaahu bihi an yuusala wayufsiduuna fi اlard maxay mudan yihiin ulaa'ika lahum اllacna walahum su'u daar naclad ilaahay baa ku dhacday daar xun oo aakharo cadaab ana way leeyihiin haddaba adigoo muslim ah oo daarta aakhare cadaab ka baqaya waajibka rabbina rumaysan ma habboonoo lama ogola dhaqan gaal inaad yeelato qaabkii gaalada aad u dhaqanto caadadii gaaladu ay ku saamayso inay ku saamayso looma baahna aayadaha qur-aanku waa fara badan yihiin oo waalidiinta qaar baa ka hadlay waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wa bilwaalidayni ixsaanan iyo samihii loo samaynayo o dhan qaraabaday kow ka yihiin ilmaha dhashay qaraabaday kow ka yihiin nabigeennana sala allahu alayh alih wasalam axaadiis badan buu marna qaraabada iyo raximka xidhiidhintooda inugu faray marna inooga digay xigtada iyo qaraabada xumayntooda iyo goyntooda in cadaab iyo naar lagu gelayana uu inoo sheegay nabigeenna sala allahu alayh waalih wasalam waxaa ka mid ah nabigeenna xadiis saxaabiga abu ayuub laga warinayo oo bukhaari iyo muslim soo saareen yaa wuxuu ku leeyahay nin baa nabiga u yimid oo yidhi rasuulka ilaahay uu ii sheeg akhbirnii bicamalin yudkhilunii aljanna rasuulka ilahi waxaad ii sheegtaa camal aan janno ku galo nabigu calayh salatu wasalaam waa u soo gaabiyo wuxuu yidhi tacbudu llaha walaa tushrikuu bih horta ilaahay caabudo waxba ha la wadaajin markuu cibaadadii ilaahay kala hadlay oo tawxiidka ahayd iyo caqiidada ahayd buu cibaadadii camalka iyo dhaqanka ahaydna u raaciyo wuxuu yidhi watuqiimu asalaata wa tu'ti zakaa sakadana bixi salaadana tuko waa un cibaadadii qayb ka mida wa tasilu araxim qaraabadana waad xidhiidhin tawxiidka iyo salaada iyo zakadu waa cibaadadii ilaahay waxa xigee labeeyee janno lagu gelayay in lagu lamaaneeyo waa qaraabadii iyo xigtadoo la xidhiiriyu nabigu tilmaamay sala allahu alayh alih wasalam xadiid abu hureyre laga wariyey oo bukhaari iyo muslim ay soo saareenna nabigu wuxuu ku tilmaamay iimaanka ilaahay iyo aakhiro la rumeeyo iyo qaraabada la xidhiiriya ma kala hadhaan wuxuu yidhi man kaana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir falyasil raximah qofkii ilaahay iyo maalin aakhiro rumaysan qaraabadaa xidhiidhiyo haddaba ilaahay inaad rumaysan tahay aakhirana xisaabtan rumaysan tahay baa keenaya oy ka dhalanaysaa qaraabada inaad xidhiidhisa maxaa yeelay allah haddaad rumaysan tahay waa xaq iyo cibaado waajib oo iskugu leeyahay qaraabada inaad xidhiidhiso haddaad aakhiro rumaysan tahayna xidhiidhin la'aanteedu naar baa lagu galaa marka qofka rumaysan aakhariya naar ee ka cabsanaya ilaahayna xaq iyo waajib cibaado inuu ku leeyahay rumaysan ee garowsan falyasil raxima qaraabadaa xidhiidhiyo mar kale nabigeena sal allahu alayh ali wasalam xadiid bukhaari iyo muslim soo saareen oo caaisha radi allahu canha laga warinayo waxa ay ku leedahay alraximu mucallaqatun bilcarsh raximka iyo xigtanimadu qaraabo cashiga ilaahay bay haysataa ay ku dheggan tahay waxaana ay leedahay man wasalanii wasalahu allah waman qaطacanii qaطacahu allah qofkay xidhiiriya allah xidhiirinaya oo xariggiisa wanaajinaya qofkay aniga i gooyana allah xariggiisa goynaya allah xarigga hadduu gooye qofka diyaagtiisa jannana uma taal naarna waa la hubaa
haddii nebi maxamed leeyahy sala allahu alayh ali wasalam qofna jannada camalkiisa kuma gala buu yidhi ilaahay inuu naxariis geliyo maahane saxaabadu iyaga wayba ka garaabeen laakiin su-aal baa ku timid nabigoo ilaahay darajadaa siiyey dadaalka camalka arkeenna sameeya oo habeenkiisuu salaad u taagan yahay lagu intay barbarar dildillaacaan inaan salaadna ka celinaynin dadaalkiisa ay arkeen qaaluu walaa anta yaa rasuula allah xataa adiga camalkaagan kuma geli kartid miyaa qaala walaa ana ilaa an yatakamadanii allahu biraxmatih xataa camalkaygu janno ima geyn kara naxariis ilaahay iniigu geeyo maahane haddii nebi maxamed saalih alayh salaam qofka la yidhahdo man qaطacanii qaطacahu llahu xarig ilaahay qofku u jaro dee see janno ku geli si uu janno ku gaadhaa ma laha saas darteed macnaha xadiidkaasna wuxuu tilmaamayaa qofka hadduu qaraabadii iyo xigtada gooye xadhiggii ilaahay ee uu janno ku mudan lahaa iyo naxariis isagaa jaray waxa soo harayna dadku meel saddexaad ma jirtee fariiqun fi ljannati hadduu noqon waayey wa fariiqun fi saciiri baad noqoni qolada naarta gelaysuu noqonaya walciyaadu billaah arrintaa nabigu intaa kale kagama tegine dardaaran buu saxaabada la dardaarmi jiray markuu saxaabada la dardaarmayo ay dardaaran dhahaan wuxuu kula dardaarmi jiray waxaa ka mid ahaa qaraabada xidhiidhi abu darin alkhifaari radi allahu canhu wa ardaa xadiis saxiixoo laga wariyey oo imaamu axmed iyo ibnu xibbaan iyo warinayaanbu wuxuu ku leeyahay awsaanii khaliili nabiga saaxiibka ahaa aad saaxiib ii dhow ahaa aadna aan ugu dhowaabaa ii dardaarmay xadiidku wuu dheeraaye wax fara badan bay ahayd waxaa ka mid ah markaa wa awsaanii bisilati alarxaami wain adbarat wuxuu ii dardaarmay qaraabada inaan xidhiiriyo xataa iyagu dhabarka hadday ii duwaan hadday xidhiirin waayaan waxtaraan ka waayo dhibkooda ka badbaadi waayo xataa qaraabadu hadday i gooyaan anigu inaan xidhiiriyo ii dardaarmi jiray nabigu sala allahu alayh ali wasalam wa awsaanii bisilati araximi wain adbarat qaraabadu dhabarka xataa hadday ii duudo ani inaan xidhiiriyo ii dardaarmay nabigu sala allahu alayh wasalam xadiid kaleo bukhaari iyo muslim laga wariyey ay wariyeen xadiid anas ibni maalik radi allahu canhu wa ardaa isagana nabigu wuxuu sheegay waxa qaraabada loo xidhiirinayo aakharana jannaa lagu galaa adduunyadana waa lagu bulaalaa cimri dheer iyo ceesh waasaca qaraabo la xigto la xidhiidhiyaa iska leh xadiidkaanaas nabigu wuxuu leeyahy man axabba an yubsata lahu fii risqih wa yunsa'a lahu fii aharih riwaayadka qaarkood fii ajalih falyasil raximah qofkii doonayee jecel ilaahay cimriga inuu u dheereeyo risiq waasacana siiyo xoolaha u badiyo qaraabada iyo xigtada ha xidhiidhiyo dee waxaa isbitaallada aynu u daba cararayno een isu daba ordayno dhimasho ka carar baa kow ka ah innagoo og inaan dhimanayno walidaalika abulcitaahiya waa ku dhihi jiray wa min cajabi اddunya yaqiinuka biاlfana wa annaka fiiha lilbaqaa'i muriidu adduunyada waxaan kula yaabay waxaa ka mida waad og tahay inaad dhimanoodan joogaynin haddana hadh iyo habeen waxaad ku dadaali inaadan dhiman waad joogtaad hadh iyo habeen u xusul duuban tahay ood u ordaysa ad u gundan tahay tol iyo qaraabana kula gurmanayaan wa maca daalika yaqiin waxaad u hubtaa kollaba inaadan dunida joogayn dunidii saa nolosha aynu u jeclayn waa khatar qofka ugu cibaado badan ee inoogu fiican hadday naftiisa waxoogay khataruu dareemayo ajal soo dhowaato nolosha wuu isku dhejin waa dabci aadamo ahoo aan ku xirnayn ma qof saalixaa tahay oo cibaado badan mise ma tihid waa dabci basharku leeyahay weeye in nolosha aad jeclaata ceeb ma aha marka jacaylku inuu xaaraanku geliyaa dembi ah nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii ajashiisii dhammaatay waa kii malakulmowdka loo soo diray waa u yimidoo wuxuu yidhi muuse malakulmowd baan ahay ajashaadiina way dhammaatay inaan nafta kaa qaadaan kugu yimid ba hal dharbaaxuu ka soo gooyo il buu fujiyey waa geeridu naxdinta ay leedahay wey rabbigii buu ku noqdo wuxuu yidhi addoonkaad ii dirtay nin dhimasho raba maaha
waxaa ku noqo waxaa ku tiraahdaa dibigan dhogorka gacanta korkiisa saar inta gacantaadu qabato oo timaa marka la tiriyo tintiiba hal sana lagaaga dhigi sidii baa muuse lagula soo noqday markaasuu yidhi kadib maxaa ka dambeeya marka la tiriyo wax la tiriye kow la yidhi koobane maxaa ka dambeeyay waa dhiman baa leelata lagaa qaadi bas wuxuu yidhi hadda raalli baan ku hay laga qaado nabi aadam calayhi salaam markii durriyadiisii la tusay mid dhalaalaya waa kii arkay yidhi kan muxuu yahay waa wiilkaa ilmaha ka midoo nebi daawuud la yidhaahdaa la yidhi wuxuu yidhi cimrigiisa waa imis waxaa lagu yidhi waa 40 ama waa 60 wuxuu yidhi 100ka ha loo dhammaystiro cimrigayga ha layga gooyo waxaa la yidhi waaya cimrigiisa waa yaqiinee markii ajashi dhammaatay baa malakulmowd u yimid wuxuu yidhi cimrigaaga waa dhammaaday isna wuu tirsanayay war may intaasaa ii dhiman buu yidhi oo soo kaad wiilkaagiis daawuud siisay buu ku yidhi waxaan siiyey ma jira buu yidhi fanasiya aadamu wanasiya duriyatahu wajaxada aadamu fajaxada duriyatahu aadam waa halmaamay ilmihiisina halmaankiibuu ku dhalay aadam wixii uu bixiyey waa diiday tii baana dabeecad aadama ah waa khilqa ilaahay ku abuuray bal ibraahim aadam oo janno laga ku jiray oo ibliis ilaahay hortiisa ugu dhaartay oo ilaahayna uga digo yidhi ninkan iska ilaali meeshuu ka soo galay waxay ahayd cimrigaagu sooma koobnoo 1,000 sano ma ahaa geeddaa haddaad cunto weligaaba dhiman maysid geedda asbaabtii uu cunayta ahayd hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla shajara haddaad cunto weliga aad noolanood waari haddaba dhimashada nacaybkeedu waa dabiicad aadamaha haddaba in yaroon maalin haddii lagu dibdhigo ama maalin gelinkeed lagugu daro ama toddobaad iyo bil lagugu daro aad rabto qaraabada xidhiidhi in xoolahaaga iyo risiqaaga ilaahay badiya haddaad rabtona qaraabada iyo xigtada xidhiidhi cabsida ilaahayna waa ku jirtaayo riwaayada ibni xibbaan baa fii saxiixii falyattaqi illaaha walyasil raximah ibni xibbaan baa ku daray raximah allahu tacaala waxaa kaloo nabigeena ka sugan sala allahu alayh alih wasalam inuu ka digay qaraabada in la gooyo xadiidkii jubayr ibni mucim ee bukhaari iyo muslim wariyeen waa kii lahaa laa yadkhulu ljannata qaaicun qaraabogoys janno ma galo waa halka mahmaada soomaalidu ka timid raxim goys waa reero naareed laa yadkhulu ljannata qaaicun taas bay mahmaa iyo halqabsi u bedeleen markay in badan maqleen mar kale nabigeenna sala allahu alayh alih wasalam waxaa ka sugan inuu leeyahay xadiid abi muusa alashcari oo ibni xibbaan iyo kayrkii warinayaan 3 buu sheegay janno inayna gelin 3 janno ma galaan buu yidhi mudminu khamrin wa qaaticu raximin wa mu'minun bisixrin qof sixir rumaysan janno ma galo qof qaraaba goys ahna janno ma galo qof daroogaysta ahna janno ma galo 3 janno ma galaan buu nabigu sal ly slam labada kale waa sidooda iyaga laftoodu waa badan yihiinoo dunuubta ay ka mid yihiine hadda qaraaba goys janno ma gala buu labadaa xadiidba nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidu abi muusa alashcari iyo xadiidu jubayr ibni mucim radi allahu canhuma wa ardaahuma halkaa waxaad ka garatay intaasaynu kaga bixin nusuusta kitaabka iyo sunnade inay aayaad iyo axaadiid badan fareen qaraabada in la xiriiriyo fadliga iyo ajirka iyo faa'iidada aakhariya adduunba laga helina tilmaameen in la gooyana ay ka digeen cuquubada iyo dembigay aakhiro leedahayna ay sheegeen aayaadka iyo axaadiidta nabigeennu ka sugan sala allahu calayh waalihi wasalam inta haddaan intaa kaga gudbo su-aal baa iman karta waa iyo qaraabada la xiriirinayo culimmadu qaabab badan bay u cabbiraan laakiin waxaan dhihi karnaa qaraabadu asaas iyo saldhig waxaa u ah 2 eray oo la yidhaahda casaba iyo dawul arxaam casaba iyo dawul arxaam midna xagga aabbahay tilmaantaa midna xagga aabbihii iyo xagga hooyadaba way tilmaantaa dawul arxaamku waa inta hadday rag iyo dumar kale yihiin guur iyo xarig aan isu qaban karin waaye waa 2 isdhashay kow bay ka yihiin
laba wada dhalato walaalo ahna ama aabbo keliya ha wadaagaan ama aabbiyo hooyaba ha wadaagaan ama hooyo keliya ha wadaagaan labada walaalaha ahna dawul arxaamkay ku jiraan waxaa dawul arxaam ku jira labada isu adeerka ah ama isu abtiga ah ama isu eeddada ah ama isu habaryarta ah isdhalitaankii waxaa soo gelaya dee labada isdhashay ee kowga ah derajada labaad ta saddexaad iyo wixii ka dambeeya o dhan aabbihii awowgii hooyadii ayeydii ilmahaa dhashay waxay sii dhaleen kuwa asal iyo farac waaye iyagu lafdiga casabana way soo galaan marka la yidhaahdo yaa casaboo looga jeeda dadka dhaxla arxaam haddii la yidhaahdana way soo gelayaan xawaashidu waa dabaqada saddexaad ee ugu fara badan asalku ma fara badna faracuna intaysa soo gaadhaayey maadu ma badato xawaashidu waa dadka aan ku dhalin adna aadan dhalin ee dhinacyada ka ah walaalaha adeer eeddo abti habaryar iyo wixii la mida kadib waxaa imanaysa ilma adeer ilma abti iyo wixii la midka ahaa haddii la yidhahda dawul arxaam eeddada iyo habaryarta iyo abtigu waa ku jiraan haddii casabaad iyo ama ahlulmiiraas dadka dhaxalka la yidhaahdana kuma jiraan saas darteed baa asaxu alaqwaali intaba way soo gelayaan kadib bay qaraabadu noqonaysaa darajaad say u kala dhowdahay bay u kala mudan tahay marna say u kala baahan tahay bay u kala mudan tahay saynu dib ka tilmaami doonno laakiin qaraabada la xiriirin ma ayo marka lagu yidhaahdo culimmada qaar baa yidhi afar aabbo awowga afraad intaad isugu timaadaan wey ka koobaad ka labaad ka saddexaad ilaa afar waaye laakiin sidaa ma aha nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa dadkii wax u dhalay maariya alqibtiya maariya alqibtiya qoladan qibtiga la yidhahdee reer masar bay ahayd qolyahaasay ka soo jeeday muslimiintu la dardaarmaya marka nabigu calayhi salatu wasalaam mararka qaarkood oo masar muslimiintu hadday gaarhaan oo futuuxaadka islaamiga loo aado yaa wuxuu ka dardaarmay dadka in la wanaajiyo wuxuu yidhi fa inna lahum raximan xigti iyo qaraabtinimay inugu leeyihiin maariya darteed marka waxaa soo gelaya xadiidkaa qisadaa waxaa ka muuqanaya waxaa soo gelaya qaraabada xiriirinta mudan gabadha iyo reerkooda iyo ninka iyo reerkiisa markii reer la noqdaay qofna cirka kama soo dhicin gabadhu reerka iyo xigtada ay leedahay waa raximka xidhiidhinta mudan iyadana waxaa ku soo kordhay intii hore ninkan ay guursatay ee reerka noqdeen iyo xigtadiisii iyo raximkiisii baa soo biiray reer marka la noqday marka raximku laba dhinac buu ka yimaadaa midna xagga ninkuu ka yimaadaa midna xagga haweentuu ka yimaadaa labaduba waa raxim qaraabadu haddaba curfigaa xadaynaya iyo taagta iyo tabartaa xadaynaysee cid kastooo wax kuu galo ama ayay ha kuu gasho ama awow dhow iyo fog ha kuu galo qof kastood wax wadaagtaan xad go-an looma samayn karo xadda go-an innaga curfigeennu waa ka mid xigtadiiyo qaraabada xadu samayntu qoysaskeennu isku mid maaha qoyska tiro yar waa xigtiya qaraabo iyagoo kala abtir fog qoyska ilaahay badiyee fara badanna dee inta dhow baaban la gaaraynino in kuwaa kale isaga dhowdihiin bay xiriirintu ay adkaanaysaa oodan gaadhi karaynin mar dad wada jooga xiriirinay kala mudan yihiin
daadadan wada joogin oon dal iyo deegaanba wadaagin aanay kala mudnaanaynin mar dad baa baahan fog kuwa dhowsa baahi ma qabaan kuwa fog baa mudanaya saa darteed qaraabada xaddeeda haddii la yidhaahdo wax tiro go-an u sameeye waxaan garanayaa bacdu a'immati salaf oo yidhi 4 awow weeye laakiin waxaa iyo xadiid oo tilmaamaya ma laha xigtadiiyo qaraabadu hadba waa qof kasta ood wax isu kiin galaan wey innaga soomaalidu qoys yar weeyo haddii inteenaasi aynu isu sheegno awowgeen iyo ayeydeen iyo aabbaha ayaa dhalay iyo awowgaa iyo ayeyda ayaa dhalay iyo adeerkaa iyo abtiga ayaa dhalay haddaan isdhiraano inta badan meelunbaa dalaq la iska soo dhihi walidaalika islaamnimadii baa dheere dadku waa wada xigtiya qaraabe ha la isxidhiidhiyo sida qaraabada loo xidhiirinayo haddaynu wax ka tilmaannana waxaan leenahay qaraabada xidhiirinteedu xoolo la siiye keliya maaha mar waxay noqotaa xoolo iyo dhaqaale iyo ixsaan infaaq inaad ku bixiso waatida alqurbaa xaqahu iyo nusuustii badnaydeen soo maraynayna qayb badan waxay tilmaamaysay ixsaanka waxaa kow ka ah iyo xidhiidhinta qaraabada hantida iyo xoolaha aad leedahay waxbay ku leeyihiin inaad wax ka siiso waxaa ka mid a qaraabada xidhiidhintooda inaad booqato ood soo siyaarato qaar baa waayeelah qaar baa socodkiiyo dhaqdhaqaaqu dhibayaayo ay duruufi ku xeeran tahay inaadanuun horay isaga sii socone wakhtigaaga qaybo ka mida aad ku darto inaad qaraabada soo salaanto guryahooda ugu tagto sidee la yahay aad tidhaahdo aad xogtooda iyo xaaladooda booqatood ogaatana waa qayb xidhiidhinta ka midoo lagaa doonayo waagi hore waan ku fiicnaan jirnay laakiin magaalooyinka waaweyn intii la soo galay labadii isu dhoweyd baan kala warqabin dee waagi hore tuulooyinkaan joognay annaga waxaan soo gaarnay iyadoo ninka odaygii casarkii markuu tukado subaxii markuu tukadaan leeyahay intaa salaada subax markuu ka soo baxo waxoogay wardi intuu akhristo uu xagga kaga soo bilaabo warree hebel saa ku barideen sidee la yahay xalay ma nabad qabteen markuu qoyskaa ka dhammaada ka kaluu tallaabi jiray haddana labada albaabee isku xigta baan salaamu calaykum islihiin oo iskaba warqabinba qaraabo iyo xaafad kale dad degan iska badaaye runtii waa mixnad soo korodhay qaab nololeedka magaalada waxaa ka mid ah qof weji furfuran inaad tahay qaraabada jid baad isaga hor imanaysaan guri baad isugu imanaysaan way kuu imanayaan way ku mudanayaan dadku maal lama deeqsiiyo laakiin weji furan baa deeqa haddii xaqa muslimiinta oo dhan waxyaabaha ugu qiimo badan ay kuu leeyihiin ka mid tahay walow an talqaa akhaaka biwajhin talqin waa sadaqaadkay ka mid tahay inaad weji furan kula kulanto qof weji furan oo laab furan oo soo dhoweeya oo markay u soo galaan indhaha aan u guduudin gafuurkan aan u taagay inaad tahay wey oo maanta adugu haddaad qof soo salaanto indhahana kuu guduudiyo gafuurkana taagoo cadho iyo xanaaq muujiyo ama gabadha sii jeediyo inuu dhibsanaya aad aragta imaatinkaaga iyo salaantaada dee berri kuwa noqon maysa banaga dhaafaadii waxan saa darteed xidhiidhinta qaraabadu weji furaanta soo dhowayntaa ka mida waxaa ka mid a qaraabada xidhiidhinteedu dadkooda jiran inaad booqataa ka mida mid baa isbitaal galay qof baa xanuunsaday qof baa wax ku dhacay dee booqashadu goorma iman dee inaad ka warqabto wey haddaadan kaba warqabin kii meel agtaada ah ku sakaraadayey inuu sakaraaday inuu dhintay aadan waru haynin waa dhib wey halka nairobi oon joogno baa 2 nin oo qaraabaa mid xanuunsaday muddo xanuunsanaa minay qaraabana yihiin saaxiibna yihiin baa waa dambe markuu roonaaday ku yidhi warniyo xageed ka dhacday horta markaas wuxuu ku yidhi niyahow haddii la dhimanayo dhinto xataa la is-aasi maaye soo maaha markaasuu niyahow waa saxe laakiin inaad dhimanaysa waa inaad soo sheegto yidhi inaad dhimanayso seen ku ogaan anugu waa inaad soo sheegto dee qof jiran see kugu soo sheegi inuu jiran yahay wuuba yaallaaye
qof isbitaal galay iyo qof guri ku xanuunsan iyo qof jiran iyo qof wax ku dhaceen adigaa laga rabaa qaraabadii iyo xigtada inaad ka warqabto si aad u ogaato yaa xanuunsan ood soo booqato soomaaliduna waxay waxbadan sugaantooda ku dareen maraad xanuunsan tahay qofka ku soo booqda qofku u caafimaada waad aragteen waa sad iyo wax siin wey adoo xanuunsan oy qandha ku hayso markii dadkii inta lagu yimaada lagu sheekeeyo sidii neef adhi ahoo roob iyo biyo ku da-ay ka gilgishayn baad noqon oo biyihii ka qallaleen qandhadiiba way kaa duuli markii lagaa dareerana waran iyo qandho unbaa laguu taagi waa booqashadu waxtarka ay leedahay iyo inay sad iyo waxqabad tahay baad ka garan waxaa ka mid a xiriirinta qaraabada munaasabadahooda inaad la qaybsato farxadda inaad la qaybsato wixii muruge iyo dhib ee ku soo kordhana aad la qaybsato ood ka qayb gasho munaasabadahooda hadday guur tahay hadday ilmo dhashay tahay ama ha kuu yeedhaan ama adiguba aad soo raadisid maalinkaad munaasabadaha farxadda leedahay qaraabada intii ku soo doontee kaala soo qayb gashaay saamayn badan bay ku yeelaan qalbigaaga iyo xiriirkaaga maalinkaad murugaysantahe wax kugu dhaco qofkii tacsidii iyo qaraabaday kugu yimaadda iyo waxqabad iyo garab istaag kugu yimaadana noloshaadii iyo xiriirkaad la leedahay saamayn badan bay ku yeelan marka xiriirinta qaraabada waxaa kaloo ka mid a hadday geeri timaaddo inaad meydka la aasto maxaa kaloo laysu qaban lahaa ilan aakhare dhinac laysu geli maaye waxaa ka mid a haddii qaraabadii iyo xigtadii khilaaf soo kala dhexgalo hadduu khilaaf soo kala dhexgalo inaad heshiisiiso inaad islaaxooda ka shaqayso inaad labadii isku xun nabadooda ka shaqayso waa xaqa xigtadii iyo qaraabadu ay leedahay innagu qaraabadii iyo tolka laba mushkiladood baa ina haysta in innaga mid ihi si xun bay ugu dhex jiraan oo qaraabada iyo tolkii xidhiidhi ka jiran booqo munaasabaadkooda ka qaybgal kuwoodii iskhilaafa heshiisii si xun bay ula taraartay iyo qaab qabyaaladeedu xumaan iyo dhiba inna intuu sidaa ka baqay yuu bannaanka ka istaagayoo nag ha isku dhahaan buu yidhi qaraabadaadu nag ha isku dhahaan waxaa ka mid a qaraabada xiriirinteeda in dhibkaaga ay ka badbaadaan oo afkaaga iyo xantaada ka badbaadaan caydaada iyo waxyeeladaada ka badbaadaan adinkaaga ka badbaadaan af iyo adin inay kaa badbaadaan baa ka mid a qodobka xiga wakhtigu waa dheeraadaan u malaynayaaye waxyaabaha sababa in qofku qaraabada gooyo ama xiriirkoodii uu hayn waayo asbaabo badan baa keena waxaa ka mid a waxaa keena qofku inuusan axkaamtanba aqoon fiican u lahayn inuusan garanayn waajibka ay ku tahay iyo qaraabada oon la xidhiidhin dembiga ay leedahay iyo ciqaabka aakhare ka dhalanaya inuusan qofku aada u garanaynin oosan aqoon u lahayn waa qodob koobaad oo sababa qaraabadii qofku inaanu xidhiirin xumaato kalaba kama aha laakiin maba oga dembi inuu ku jira qaraabadan uu gooyey ajirka uu ka heli lahaana ma garanayo inta aan garanayo xigtiiyo qaraabo la xidhiidhiyo xoolo la siiyey anuu qof u xoolo waayo u faqriyay garan maayo laakiin dad badan oo ku tanaaday oo ku taajiray baan garan dad ku tanaaday oo ku taajiray oo badan baan garan dad qaraabada markay gooyeen hantidii iyo xidhiidhintiina ka waayeen xoolihii dhaafeenna waan garan laakiin qof xoolo iyo qaraabo xidhiirin u xoola beelay anu garan maayo saas darteed qofkani waxaaba laga yaabaa xoola bixin inuusan diidanayn laakiin waajibba inay tahay oo ay cibaado tahay oo ay ka tegitaankeedu dembi iyo xaaraan weyn tahay oos dembi weynba ku jirooo janno geli maysid lagu yidhi inuusan garanayn baaba qofka dhici kartaoo taasi way sababi kartaa inaanu qaraabo xidhiirin
waxaa dhici karta inuusan qaraabadaba aqoonin oo jahli nooc kale ah gaar ahaan ilmaheenni magaalada ku koray subaxii iskuul baynu u dirnaa ilaa uu weynaadoo duurkiisaa maroo jaamacad ka soo baxo subax ilaa galab wayn mashquulinnaa qaraabo uma geyna qaraabana ma barro saa darteed muxuu xidhiidhin maba yaqaani waxaa la mida ilmaha qurbaha ku dhashay oon dadkoodii iyo ahalkoodiiba dhex joogin waxay culimmadu in badan u yidhaahdaan war ilmaha fasaxyada wadammadii geeya qaraabadooda u geeya waxaad arkaysaa waalid ilmihiisiibuu haystaa ilmahan weligii hooye ayeeye ma arag awowna ma arag adeerna ma arag abtina ma arag eeddana ma arag habayarna ma arag weligii waxaan laga sheekaynayo hadal meel dheer ka soo yeerayay ka mid tahay maalinkii dambe u iman hooyadii oo murugaysan hooye maxaa dhacay buu dhihi ka nexe waxay dhihi hooyaday baa dhimatay inna danqi mayso oo sooree buu dhihi marka intaasayba kaga dhantahay boolesana sababtoo maba yaqaanba soomaalidu waa kay horey u dhaheen geeridu geel jiriya cid aan la garanayn bay ku fiican tahay ninka maba garanayaaba qaraabo ilmaha qurbaha jooga waxyaaba la yaabee aad la yaabay dhacdooyinka waxaa ka mid ahaa dee markii dhowr qoys meeshaa ku degan tihiin wixii haweenoo dhanna waa habaryar wixii ragahoo dhanna waa adeer suu u haystay wiilal yaryara say u haysteen raggan oo dhan adeer inay u yihiin baa soomaaliya la keenay adeerro kalay arkeen waxay dhaheen kan adeerkaa wey adeerkii runtahabaa hadda loo yimid wuxuu yidhi aabbe kuwiina adeerray ahaayeen kanna adeer weeye maxay kala yihiin kuwaana waa adeerro kore kanna waa adeerkii runtaha baa lagu yidhi this is a true uncle baa lagu yidhi waagi dambe wuxuu bilaabay kan waa adeer marka la dhaho ama true uncle miya mise waa kuwii kale halkaasayba ka taagan tahayba isaga ilmaha halkaa ay ka joogto ee qurbaha ku koray ama halkanba joogoo qurbaha dhinaca ka shabahdoon xigto iyo qaraabo la barin yuuba xidhiiriyaade wax qofkan ka dhexeeya ma yaqaan waxay u sii yihiin ma yaqaan wiil yaroon aqaanaa wuxuu yidhi waa gabar ay walaala yihiin mise ilma adeer bay ahaayeen baa dhowr jeer ciyaal dilayay ka dhicisay maalinkii dambe intuu yeeray buu heblahay waadun ii heelisaaye horta maxaan su nahay waadun ii heelisaaye horta maxaan su nahay buu wiilaloo koraya wuxuu baarayaa inay u heeliso maxaa sababay horta maxaan su nahay buu waxaan u badinayaa inay walaalo ahaayeen oosan aqoon isku hooyo ma ahayn marka ma yaqaan horta waad ii heelisaaye maxaan su nahay buu leeyahay marka waa dhici kartaa qaraabadu qofka inuusan xiriirin inay sababto qaraabo ma yaqaan walidaalika nabigeenu sal lla alay slam wuxuu ku dardaarmay xadiid imaamu tirmidi iyo imaamu axmed iyo ay warinayaanoo xasana wuxuu yidhi tacallamuu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum nasabka iyo abtirka waxaad ka barataan waxaad xigtada iyo qaraabada ku xidhiidhisaan adigu hooyadaa waayo yaa la dhashay eeyaydeed waayo yaa la dhashay hooyadaa yaa abti u ahaa yaa adeer u ahaa aabbahaa hooyadii waayo aabbihii waayo yaa la dhashay yaa abtiya adeer u ahaa xigtadii iyo qaraabada xidhiidhadaba kala duwan kugu soo gelaysa inaad barataad u baahan tahay walidaalika ansaabta in la barto abtirada la barto inta ilaa xad qaraaba xiriirinna ujeeddadu ay noqoto buu nabiguu tilmaamay marka wuxuu yidhi qaraabada xiriirinteedu adduunkana waa ajir xoolahana way badisaa cimrigana way dheeraysaa saas darteed waa cimrigii kuu dheeraynaya xoolahana kuu badinaya aakharana janno aad ku gelayso bay weeye ansar nasabkii barta marka waxaan rabaa inaan idhaahdo in ilmahaagu qaraaba goys noqdo waxaa keeni kara inaadan qaraabadii iyo xigtadiisiiya barin inta wax la wadaagta inaadan barin ilmahaaga u fiirso haddii aad tiraahdo afka uga sheegto iyo haddii intaad fasaxan qaadda qaraabadii aad dhex geyso uu soo barto aad bay u kala duwan tahay berri markuu soo bartay yimaadaan orod buu kaga hortegi laakiin haddaad u sheegto markay soo galaan wuu ka carari waayo ma yaqaan ilmihii gadaal buu carariyo dadkan maxay yihiin buu dhihi laakiin hadday u yimaadaan adna aad u geyso
maalinka markay soo galaan dhabtooda orod buu isugu tuuri wuxuu ku kori qaraabadii iyo barashadii iyo xiriirintii waxaa ka mid ah waxyaabaha qaraabada inaad goyso keena in diintu kugu qalloocataa ka mid ah waa baabta diinta iyo caqiidada baab ka mid ah baa dadka qaar ku qalloocday markaasay qaraabadii gooyeen qofkani diin ahaan wuu toosan yahay iyo xataa waa muslim iyo waa gaal kuma xidhna qaraabada xiriirinteedu xigtadii iyo qaraabadu xataa hadduu gaal yahay xaqii qaraabada wuu leeyahay walidaalika nabigeena sal slam xilligiisii adeeradii inna waa la dagaaleen inna waa la safteen cabbaas iyo xamsana way la safteen radia allahu canhuma abulahab waa la dagaalamay abu aalibna waa la saftay laakiin ma islaamin adeerkii abulahab xadiidkuu ku tilmaamayey buu wuxuu yidhi ina aala abi fulaanin laysuu biwliyaa'i walaakin lahum raximun saabulluhaa bibalaaliha aniga awliyadaydii iyo dadka diinteeda ee walaa walbaraa naga dhaxeeya ka mid ma aha waxay saas tahay abulahab oo intaa la dagaalamayey raxim iyo qaraabtinimay igu leeyihiinoo xariggaa qallali maaye waan qoynayaa wixii xigta iyo qaraabtinimo waa ku xiriirinayaa wixii kale laakiin nagama dhexeeyo dadkay innamaa waliyullahu warasuuluhu waalmu'minuun ani weli waxay allah iyo rasuulkiisa iyo dadka mu'miniinta ba ah markay tahay yaad wax isku darsanaysaan yaad mustaqbal wadaagaysaan yay dan iyo diin idinka dhexaysaa waa dadka muslimka ah markii la yidhaahdo laakiin duqan adeerka ah ee haddana dhiblowga ah ee tabad yadaa abii lahabin ku soo degtay ee diintaada la dagaalamaya ee tabban laka alihadaa jamactanaa ku leh ee wiilashiisii gabdhaha kaa qabay kugu xumeeyo wada fura yidhi haddana walaakin lahum raximun saabulluhaa bibalaaliha nabigu isagoo madiine jooga mar kale sal slam yaa waxaa u timid asmaa binti abi bakr waxay tii rasuulka ilaahayow hooyadeedna dhinacaa qurayshiya markay ka timid muslimiintana maka waa kuwii ka qaxay oo madiino la tegey waxay tii rasuulka ilaahayow hooyaday baa ii timid waana gaal hiya mushrikatun gaal weeye raxim humaamata bni uthaal la yidhaahdaa soo islaamay oo madiine yimid isaguna dhul tihaamo la yidhaahdiiyo dhulkaa kore oo dhulbeereedka ay raashinku maka uga yimaadaa buu kaaba qabiil iyo suldaan iyo ugaas ka ahaa si aan fiicnayn bay maka ula dhaqmeen oo ninkan wuu leexdayoo waa la xumeeyey intuu xanaaqay buu ihi ballan ilaahay waxaan ku galay dhulka inaan hal jawaan oo masagaa idinka imanin hal jawaan oo raashinkaan idinka goyn cunaqabatay maa insaani buui ilaa uu nebi maxamed ogolaada sal ly slam nimankii quraysha intaa dagaalku ka dhaxeeyeen nabadna ma jirin markaas baa nabiga fariin u soo diray waxay nin kastoo dagaal inaga dhaxeeyo laakiin dad raxim iyo qaraabo wada dhashay baan nahay dad meeshiina gaajaa loogu baaba'ayaa ninkiina raashinkii dadku uu ka joojiyey waxa dhammaanayana waa qaraabadaadii iyo xigtadaadii dee ninkii nagala hadal ninka uu fariin u diro wuxuu yidhi raashinka u sii daa waxaa laga yaabaa innaga maanta inaad dhihi lahayd magaalkii xumaaye abulahab ahaa baa la xidhiidhiyey ee diinta la dagaalamayey walaa walbaraa baad ku dhacday oo waad gaalowday baa dad qaar ka dhaadhicaysa markaasuu qaraabada jaraya nimankii reer quraysh ahaa ee intaa dagaalka muslimiinta ku hayey oo madiino 420 kilomitir u jirta kaga soo dabaduulayey baa maanta raashinkii loo fasaxay laysa masale diin ma aha laakiin xigtada iyo qaraabtinimadu xaq bay leedahay iyaguna waxay kula hadleen raxim iyo qaraabaana dad raxim ah oo qaraabo ah oo ahal oo wada dhashay baana Soomaalidu soo ma dhihin haddii dhalasho la hubo kala tag lama hubo hadday wada dhashaan maanta waa isku xanaaqaysaan maanta waa iscaayaysaan maanta feer baa isla dhacaysaan laakiin isku xanaaqiinna iyo dagaalkiinna waxa uu ka adagoo aakhirka adkaan doona dhalashada haddii dhalasho la hubo kala tag lama hubo saas darteed imisaad qaraabada iyo xigtada intaa isku xanaaqdaan berrina ka socotaan iyadoon cidiida heshiisinin dhalashada xarigga dhalashadaa keenaya
xariga qaraabtinimada iyo raximka keenayo xiisadan xanaaqu markay baaba'do xiriirkii qaraabtinimada iyo qoyaankii wada dhalashada soo duuxaya oo soo laabanaya waxa kamida waxyaabaha keeni kara inay xoolo jacaylka qofku aad u xoolo jecel yahay ama wax lagu weydiiyaa uu yiraahdo ama uu ka bakhaylaya xoolo inuu siiyo xoolo jacaylka iyo maal jacaylka fara badanna nabigu waa ka badigay sallallahu alayhi wasallam si guudba iyaakum washuha fa inna shuha ahlaka ma ka man kana qablakum arabiga waxaa jira yiraahdaan al-bukhlu wash-shuh bakhayl weeye iyo shahiix weeye shahiix baa ka sii daran culimada qaar ba waxay yiraahdeen si uga sii daran yahay baan fasiraynaayo bakhayl waa ninka xoolihiisa ku diiday dhahan oo xoolihiisa bixin shahiixna waa kuwiisa iska daayay qofka kale xoolihiisu ka hagran qof wax bixinaya hadduu arka way dhibi haddii qof loo imanayo wax bixinayo xoolihiisa la arko wani wax xoolo bixis badnida niyo maanta dhan ruuxan masaakiinta ma isdaafisid buu leeyahay oo isagu masaakiinta hadii agtunaadana maxaa ka galay oo ninkan xoolihiisa la baxayo xoolahana ma laha miskiinkiina maaha markuu qof masaakiin wax siinayo arko dhibsan waxba ku dhegdhegiyo waa lagu didi qofkaas shahiix la yiraahdaa bay yiraahdeen xoolihiisa iska daaye kuwa kala dadkii lahaa inay bixiyaan oo sadaqaystaan baa dhibi Soomaalidu waa laba eray bay leedahay anu garan maayo kiisi daran bakhayl waa taqaanaan Sooma dhakhul hebel waa dhakhul anu waxaan u aqaanaa bakhaylnimada mid ka siifo oo bakhaylnimo mara ku dhag markay noqoto oo diir ku dhag qofku bakhaylnimada uu ku noqdo baa intaan qiyaasaya la dhihi jiray hebel dhakhul waay war bakhayl ma aha naga daakaas dhakhul waay iyagoo odayaashu yiraahdaan maan garan marka shahiixi dhakhul iska dhahdaa rabto marka way keeni kartaa waxa kale oo keeni kara qaraabada ku xumaysa qaraabadu inay ku xumayso aad xiriiriso ay ku gooyaan waxaasi sabab lagu caayo adiga mardabadaada laga shaqeeyo lagu isubahaysto saf laga maro waxay saastay nabigeena nin baa taa uga dacwooday sallallahu alayhi wa sallam isagiina muunan ugu cudur daarino adiguna xarigooda jar ma dhihin rasuulka ilaahay wuxuu yiri qaraabadayda asiluhum wa yaqta'uni qaraabadayda waan xiriiriyaa iyana way jaraan wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilay samaan u sameeya iyagana xumaan bay igu bedelaan sayyalan garan lahay waan xiriiriyay iyagu ma xiriirinayaan ihsaan baan sameeyay iyo wax wanaagsan xumaan baa la igu abaalgudaya nabigu wuxuu yiri calayhi salaam la in kunta kama taqulu haday saad sheegaysa ay runta tahay fa ka'annama tasuffuhumul mal waxaad siinayso dambas kulul adoo quudinaya la mid tahay dambiga iyaga dhibka qaba wala yazaalu ma'aka min allahi dhahirun inta aad sidaa tahayna ilaahay mid ku kaalmaynayo ku garab istaago kugu daraya xagga min allahi baa gargaar iyo cid ku kaalmaysa kala socota hadalka dambe wuxuu dhiirigelin u yahay inuu saasi wada isagu xiriirintana sii wado ihsaanka iyo wanaag sameeyntana sii wado hadii la yiri muslimkii guud idfa' billati hiya ahsan qofkii ku xumeeya sama ugu abaalgud adu wanaaj fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun kaannahu waliyyun hamim haday bi xigta iyo qaraabtinimo jirta soo celinaysay isaga ka soo noqosho dhawaanaya aakhirka uu soo noqon doonaa marba hadii la yiri xagga min allahi baa cid ku gargaaraysa ku raacina ku lamaanayn diyaa ka maarmoon u baahnayn cid rabbi xaqiisa ka timid oo garab iyo hiil ku ha kula socoto macnaheedu sii wad bay ka dhignay sadarteed way igooyeen cudurdaar maaha way xumeeyeen cudurdaar maaha laakiin wax dhici kara waa qofku inuu soo dhici karta inuu garanayo xukunkii qaraabadana yaqaano laakiin diinku dhaqan xumo iyo dacful iimaanna waa keeni karaa qof aan bakhay lahayn baad arki
oo dadka wax siinaya oo xoolihiisii bixinaya qofka bakhaylnimo uma diidana dadkiina waa yaqaanaa oo xigtadii iyo qaraabadii haddaad ugu timaada nasabka dadka dad badan baan naqaanaay oo saas oo xigti iyo qaraabaanna markaad garan weydo qofkan meel baad qaraabo ka tihiin baa la yidhi ayagaan u tagnaa waxaan war hebel xagee qaraabo laga yahay markaasuu ayeydii afraad iyo shanaad qofkii dhalasho laga wadaagay kugu abtirin isaguna cidna xiriirin maayo wax dhaca wey qofkaasi iimaankii unbaa daciifayo waa qofka baraarujintan oo kale ay waxu tartu ka mid yahay waxaa dhici kara mashquul inay keento qofkii adduunyu ku mashquulsan yahay subax buu ka lahaa habeenkii fiidkiina waa soo dhaca galbadaa waa dhacaa nin baa la yidhi soomaalidana boqol xoola raaci jiray war ma cadeyti goor maa cadaydaa buuri maalintiina waan fooriyaa habeenkiina waan hurdaa maalintiina xoolaha fooriyadooda ku mashquulsanahay habeenkiina hurdaan ku mashquulsanaya goor maa cadaydaa buuri mashquulkan xayaatada ee faraha badan wuxuu keenay qofka isagoo wixii garanaya qaraabadii inuu wax siiyo raba mashquulkiisa in qaraabaduba ay iswaayaan wakhtiguu ku booqdana uu waayo wakhti ay isku arkaan oo isxogtooda ku ogaada waayo 24 saac waa mashquul hurdadaaba ku yarba intuu seexdo hurdadii lafteedu nasashadiibu wakhti u laaya mashquulka faraha badanna asbaabta keentay ka mid tahay qofka inuu ka gaabiyo xiriirintii qaraabada iyadoo wax kaloo xumaatay iyo dhib iyo aqoon la'aaniba jirinba inahaasi waa qaybo ka mid ah kelmadda ugu dambaysa waxaan ku soo gabagabeynayaa waxyaabo waxaa jira qofka intaan soo sheegaynayna ay ka mid tahay oo qofka uu kaalmaynaya qaraabada xiriirinteeda waxaa ka mid ah in mar badan la xasuusiyo oo dadka lagu soo celceliyo oo ay dhagahooda in badan ku badato muhiimadda ay leedahay qaraabada oo la xiriiriyo aayaadka lagu akhriyo ajirkay leedahayna loo sheego cuquubada dayacaadda qaraabadana loo sheego intaas haddii wax badan lagu celceliyo fa inna dikraa tanfacu lmu'miniina buu qofku noqonayaa dad badan baa ilaahay ku anfacayaayo markuu wacdigaa maqlee dareemo laga yaabo muddo dareenkaa inuu ku jiro uu kan la xidhiidho kan telefoon u diro kan $100 u diro kan 100 shilin siiyo kan salaamo kan soo booqdo kan wax u taro kan cafi yiraahdo laakiin muddo markuu joogo bay xasuustii baasiinku ka dhamaanayaan xasuustii riixaysay baa ka dhamaanaysa mar labaad haddana in lagu soo celiyay u baahan walidaalika aayaadka iyo axaadiistu waxay ugu celcelinayaan marba markii la halmaamaba xasuusi waay wadakir fa inna dikraa tanfacu lmu'miniina dow saa darteed in qofka la xasuusiyo qof walba qofku arkana uu dareensiiyo oo yidhahda warniyow xaqii qaraabada ma halmaantay ajirkee leedahay ma og sow ma ogid dembiga ka dhalanaya dayacaaddeeda sow ma ogid bayna atarkiib watarhiibkaa lagu wado waxaa kaloo ka mid ah qaraabada dadka saaad u tihiin iyo abtirka iyo nasabka sidaad isu galgashaan inaad barato si qofkii qaraabadanimadii aad u ogaato ilaan xiriirintu waxay ka dambaysaa inaad horta ogaato qofkan qaraabo inaad tihiin ilmihii la baro dhallinyaradii la baro ee wax walbaba sabuurad baynu ku dhejinnaayoo waynu barannaaye dee sabuuradahan guryaha yaallee wax lagu dhigayo iyo cashiradan guryaha la bixinayo iyo maaweeladan la qabanayo waxay u baahan tahay in qaraabadii baritaankeeda lagu daro niman baa waxaan ku yidhi iskuulle iyo meelaha waxbarasho lahaa maadooyin waxaad ku dartaan mararka qaarkood tartan iyo musaabaqa ah oo ilmuhu intee in leeg buu abtirkiisa iyo xigtadiisa iyo qaraabadiisa garan karaa hooyada iyo hooyadeed magaceed hooyada aabbaheed magacii aabbaha hooyadii dhashay magaceed aabbaha aabbihii dhalay magacii aabbaha aabbaha dhalay abtirka inuu ku gartaa laga yaabaa laakiin ilmaheenna in badan aabbaha hooyadii magacii haddii la yidhaahdo in badan baan garanayn hooyadaa hooyadeed hadduusan guriga ku soo gaarin oo ayeeyo joogin magaceed haddii la yidhaahdana in badan baan garanayn kuwa waxaan ku niman waxbarasho dhigtaay tartan jaa'isooyin la sameeyo ilmaha loogu sameeyo iyo dhallinyarta qaraabadiisa nin walba abtir iyo isa soo galgalka inta uu yaqaan markaa ilmuhu ordaya waxaad arkayda hooyo adii hooyada magaceed leh adii aabbaha magacii
adi walaalaha waa imisa raga imisa dumara imisa reer leh imisaan guursanin isagoo durbo kule aabbuhu u tagaya aabba hooyada magaceed imisaa kula dhalatay rag sidii ilmo hore baad arki lahaydeen waxbarashada iskuulada meel la kama gashee marmar musaabaqaadka iyo tartanka la qabanayo aqoonta qaraabada ku daraa niman mar hore ku iri qolada madalladana waa u soo jeedin lahaa inay madaalista marmar munaasabaad u qabtaan tartan barashada qaraabada iyo qoyska ah oo ilmuhu raximkiisii lagu barayo oo uu ku baranayo jaa'ize iyo hadiyadana lagu qaadanayo waxaan isleeyahay waxbay ka tari kari lahayd waalidkii iyo gurigana hawl badan baa u taalla waxaa ka mid aan isleeyahay waxyaabaha aan ku soo gabagabaynayaa qaraabada xiriirinteeda wax ka qaadanaya in qofku uu sabir iyo dulqaad u yeesho xigtada iyo qaraabada adduunyadan afkaagaba inta isqoonsata waa isqaniintaa labada isqabana marna waa nabad marna waa qayli iyo dagaal soomaalidu sooma dhihin laba isqaniya naagtii colna ma aha nabadna ma aha arrintaa wax badan baa ka jira maalin kastana waa mar balbana waa la isqaban oo waa la murmi oo xaaja dhex mari xaajo lagu coloobo oo lagu kala tagana maaha de col hadduu dhaco waa la kala tegi jiray colna dad isku xanaaqsan dad col dhex yaalla waa u egyihiin laakiin duruufta noloshaa keenaysa labada isdhashay maalin kasta way isku dhacaan waadna wada socotaan dee labadiinni isqabtayna waa wada socotaan isku dhaciinnii ma goynin xiriirkii labadii isdhashayna isku dhaciinnii xiriirka ma goyn sidoo kale xigtada iyo qaraabada isku dhacu in dulqaad iyo sabir iyo taxamul loo yeesho aan isku dhacu qaraabada iyo xarigga goynin waxna waan isku haynaa waxna waan isku leenahay waxaan isku leenahayn kala mudannahay aan ilaalinno qolaa laga sheegay walaalo ah oo aabbahood dhintay baa xolii dhaxalka qaybsanayay nin oday u ahaabaa wuxuu yidhi baa ilmaha walaalayaalow waxayna iyaga dhex yaalla waa lex jeclo waxaynaga dhexeeyana waa dhalasho haddaba dhalashada aan meel geed ah soo saaranno si aynan waxaynaga dhexeeye isku dhacdhaceenno iyo lexjecladu dhib inooga gaarsiinin markaan ta dhammaysanno dhalashadiiyo geed inoo saaranna aan kala soo degno marka waxna waa waxa dhacdhaca idinka dhexeeya waxna waa dhalashada dadka ka dhaxaysa xigtada iyo dhalashada iyo taa ha la kala saaro hadda Soomaal arag hay-adaha iyo shirkaduhu iyo xaafadaha maamulkooda iyo dariisyadu dad waxaa danta guud wadaaga iyagu gaar isugu dhacsan xaafadaha isu timaada haddii la yidhaahdo laba colan wada hadlin bay isu keeni danta xaafadoo laga hadla nin walba qof walba ra'yigiisu ka dhiiban haddii iskuulkaa la yidhaahdo waalidkii ha loo yeedho imise isku dhacsan baa isugu iman laakiin waxaa laga wada hadli goobta inta la joogo danta waxbarashada iyo iskuulkan iyo waalidiintan iyo ilmahooda ka dhaxeeya ilmahana islaaye iyo waalidkana isku dhacsanayo macallinka iyo dadkaasa isku dhacsanayo meel baa la iska yar dhigi qof inay la yar taraarto waa laga yaabaa kala yar taraartana waa la qaban taa waa gaare tan guud ee dantan isugu nimid baa lagu dhihi xigtadana dantaa guud iyo isxiriirin baa idinka dhaxaysa qaarkaad wax isku dhacdhacdeenna wax gaara idinka dhaxeeya labadooda ha la kala saaro ilahi waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala kuwa qaraabadooda xiriiriyey inuu naga dhigo nagu daro nagana badbaadiye dembiga qaraabada goynteeda wixii naga dhaxayna nagana dhaafo dembigeeda towbadiya ka noqoshadeedana allah ina waafajiyo warka waan badiyeye raalli hada wabaaraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu